dhammaanteen waan maqalnay shirkadda Netflix laakiin ma ognahay xaqiiqda shirkaddan mise wax qarsoon baa jira muuqaalo aan akhlaaq ku dhehnayn afkaar halowsan iyo ka leexinta manhajka saxda taasi waa arrimaha ay ku soo bandhigtay shirkaddan ku dhuumata madadaalada iyo aflaanta waanu ogsoonahay hadafkeedu ugu weyn sida caadiga inuu yahay inay hanti ka samayso laakiin maxay yihiin ahdaafta kale ee ku qarsoon shirkaddan maxay tahay shirkadda Netflix maxayse tahay xiriirka kala dhaxeeya ururada qarsoon iyo kuwa gudbiya madaahibta gedisan ee khaldan xaqiiqdii ma shirkad kaliya oo filmaanta soo saartaba mise qisadeedu waa mid kale su'aasha muhiimka ayaa ah maxay tahay xaqiiqdeedu muxuu yahay hadafkeedu assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkana subscribe saaro muuqaalka hadaa ka heshidna like saar mahadsanid barnaamijkan waxaan ku soo bandhigi doonaa shirkad shaki badan ku abuurtay qaybo badan oo bulshada ka mid ah kadib markii la saluugay aflaanta ay soo gudbiso aan idinka warramo shirkaddan calaamadeedu tahay xarafkeen xarfaheeduna ka kooban yihiin 7 xaraf Netflix waxa markii ugu horeysay la aasaasay bishii Agosto 1997 waxaana aasaasay 2 ganacsade oo saaxiibo ah oo lagu magacaabo Mark Randolph iyo Reed Hastings shirkaddan waxay ka bilaabatay magaalada Scotts Valley ee gobolka California ee waddanka Mareykanka waxayna ku soo caanbaxday inay noqoto mid ka mid ah aaladaha ugu horeeyay ee laga daawado aflaanta markii ugu horeysay ee la furay Netflix waxay ahayd mid u adeegta inay kareysato filmaanta oo kaliya dadka isticmaala ayaa ka dalban jiray filmaanta ay u baahan yihiin website-ka Netflix waxayna u heli jireen filmaanta qaab DVD ahaan oo boostada loo marinaya marka ay dhameystaanna waxay si fudud ugu celin jireen shirkadda waqtigaas shirkaddan waxa loo arkay mid waxtar u leh kuwa aan haysan xarumo u dhow oo ay filmaanta ka helaan ama ka daawadaan sanadkii 1999 Netflix waxay soo bandhigtay adeeg isdiiwaangelin bil ah iyadoo bixisa kirooyin DVD ah oo aan xad lahayn oo qiimo aad u hooseeya ah bishii 2000 Netflix waxay soo bandhigtay nidaamka recommendation systemka nidaamkan ayaa ah mid lagu soo bandhigayo muuqaalo aad u fara badan aadna ka daawan karto muuqaal walba aad u baahan tahay 2003 Netflix waxay ku dhawaaqday inay gaartay 1 milyan oo macaamiil oo gudaha Mareykanka 2005 Netflix ayaa gaartay 4.2 milyan waxayna ahayd korukac degdega marka loo eego sanadkii hore ee 2007 Netflix waxay soo bandhigtay adeegga isticmaalka filmaanta online-ka kaasoo u ogolaanaya xubnaha in isla markiiba daawadaan musalsalada iyo filmaanta iyagoo ka daawanaya kombiyuutarada khaaska ah maanta Netflix wuxuu sii daayaa aflaan kala duwan wuxuuna leeyahay in ka badan 209 milyan oo macaamiil ah oo lacagta bixiya ku kala noolna in ka badan 190 wadan oo adduunka waxayna bixisaa musalsalo aad u waaweyn dokumentariyo filmaan gaargaara oo kala duwan noocyadooda iyo luuqadahoodaba dad badan ayaa aaminsan in shirkadaha waaweyn ay ujeedkoodu kaliya yihiin inay hanti sameeyaan laakiin sidaasi ma ahan mid macquul ah oo marin habaabin weyn markii ay soo caanbaxday shirkaddan noqotayna mid caalamka lagu wada yaqaan waxa soo ifbaxaysay oo isticmaalka meelo kala duwan iyadoo looga faa'iideysanayo fariinteeda oo gaaraysa meelo fogfog shaki kuma jiro in warbaahinta casriga ah ay kaalin muuqata ka ciyaartay abuurista wacyiga qaybo aad u badan oo dhalinyarada ka mid ah maadaama warbaahinta casriga ah ay qayb laga maarmaan ah u noqotay dad aad u badan waxayna keenaysaa hagidda iyo saameynta nolosha shakhsiyaadka si taban iyo si toganba marka aad isticmaalaysid hubqaal waad ogaan doontaa in taxanayaasha qaarkood ay ku jiraan muuqaalo anshaxumo ah kuwaasoo ah dhaqamo aan wanaagsanayn laakiin waxaad u malayn doontaa waqtigaasi in shabakadani kaliya ay ka walwalsan tahay macaashka iyo samaynta hanti maadaama ay bixiso adeegga bandhigidda filmada iyo taxanaha kala duwan sidaa daraaddeed waxaad heli doontaa kuwa xunxun iyo kuwa madadaalo iska ahba waxaadna u baahan tahay oo kaliya inaad doorato bandhigyada ku habboon adiga oo aadan khilaafin dhaqankaaga iyo diintaada haddii aad marmar la kulanto muuqaalo aan habboonayn waxa kaliya oo ay tahay inaad muuqaaladaasi iska ceeriso waxyaalahan waxa ay caadi ka yihiin wadamada reer galbeedka iyo aflaanta wadamada kale qofku uma baahna inuu noqdo mid aad u caqli badan si uu u garto waxa halkaa ka dhacaya ay yihiin si ku talagal ah oo lagu baabi'inayo qiimka toosan
taasoo ku ah daawadayaasha dhimbilo dab ah ilaa ay caadi kula noqoto waxa meesha ka socda ee la daawanayo. maxay tahay xaqiiqdeedu? Netflix ayaa kugu harqinaysa muuqaalo tiro badan kuwaasoo ah faleembooyin khatar ah oo ku socda maskaxda daawadaha, laga soo bilaabo fikradaha halowsan ilaa laga gaarayo inay kuu ahaato mid caadi ah oo aad la qabitimtay. daraasad lagu sameeyey waddanka Mareykanka muddo 20 sano ka hor waxay muujisay in boqolleyda aqbalitaanka khaniisnimada iyo ficilada dadka qowmuluudka ay ahayd 27% sanadkii 1996 iyadoo uu kordhay boqolleydeedu wuxuuna gaaray 60% 2015. maxaad moodaa haddii la sii joogo dhowr sano? tani waa caddayn cad oo saameyn leh inta ay la eg tahay awoodda warbaahinta iyo filimadu ay ku bedeli karaan dabeecadaha dadka. kadibna xaalku wuxuu gaaray inay shirkaduhu qorsheeyaan inay u gudubto horumarinta filimaanta daawadayaasha muslimka iyo kuwa bariga degan, maadaama qaar ka mid ah musalsalada ugu caansan ay bilaabeen inay goobtan ku soo bandhigaan jilayaasha ka soo jeeda wadamada bariga ee muslimiinta. tusaale ahaan waxaa jira taxano cusub oo dhowaan la sii daayay. mid ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn taxanahaasi waxaa ka mid ah gabar muslimad ah oo falastiiniyad ah oo xijaaban oo ku lug leh xiriiro jinsi ay la samaynayso rag aad u badan. kani waa barbilowga iyo tusaalaha soo ifbaxaya oo ka mid ah xaddi aad u badan oo fikrado khaldan ah iyagoo dhambaal been abuura ka faafinaya bulshada islaamka kuna boorinaysa saamaynta sinada iyo dhaqamada xunxun. daawadayaasha Netflix ee adduunka oo dhan sanadka 2021 waxay kor u dhaafiyeen 200 milyan oo daawadayaal ah. saamiga dadka dhalinyarada ay kuwa qaangaarka ahina qiyaastii waa 55%, taasoo la micno ah inta badan ay la qabatimeen waxa laga daawado Netflix. waa waajibna saaran dhammaanteen inaynu ka digtoonaano khataraha aqooneed ee ka dhalan kara raacidda aaladaha noocan ah iyo inaynu ka shaqayno sidii looga hortagi lahaa iyadoo loo marayo ololo wacyigelin iyo hanuunin dhagaraha lagu bartilmaameedsanayo diinteena iyo dhaqankeena suuban ee dhalinyarada. si looga ilaaliyana waa in loo sameeyaa wacyigelin fara badan.